عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحجك أسعده أيا وحي أركنين مركا آدو سو سعودو فرسك آدو سو إرينايا مركا عمر بن الخطاب با يقول وحوري ننكاسي كل أنكو نو سعوداي جوكسد بوي وجوجي عمر عيدن كي ننكي أو آدو دالن أو آدو نحسن با مركا عمر سو قاري عمر هرتي سو كدعي عمر با مركا كويري منن عدو إرينيان وعبصونا يا آيات هاي أنكم مغان قلنا مثلن دين لقول يا هاي أو دين كي بحين كروايي أو أباهن إلا عاوية آيات هاي مثلن نف بني آذن سوقويي وحق دركو السود دلي بات هاي مركز انت منا ميهبو يلي وحان كيمي دبوري بصراء يا كيمي دا بصراء فما قالكو تال العراق أبا موسى الأشعري هلكا أمير نوغا أها هاي هلكا سانو جوغو دنبي إيقا دعي بو دنبي كا دعي محوية خمر بان عبي بيولي لأن أبا موسى الأشعري انتو قبتيبو إيقا جريبولي حدكو إمريي هاي تمهينا إيقا حيري هاي فرسنا انتو إيقو قادمو مقالة دي بصري دحمر يو حويري نكا هلا عننا oo halla fadhiisanina oo halla saaxiibina oo ka dheeraada buu yidhi wajigaygii biga madoobayey buu yidhi markaa naftaydii saddex mid bay igu sheekaysay inaan sameeyo imaa inaan abaa muusa alashcari intoon gaado aan qoorta ka gooyo imaa inaan gaalada intoon iskaga biiro waxay cabbayaanna aan la cabbo waxay cunayaanna aan la cuno iyo kana aan ka mid noqdo imaa inaan adiga kuu imaadood iga qabatid amiirka muuminiinta marka cumar bnu khadaab ayaa yidhi radia allaahu canhu inaad ii timiday ilaahay baa ku waafajiyey buu yidhi inaad gaalo u tagta ha yeelin inaad abaa muusa alashcari isagana intood aad u dhumata aad dishaana ha yeelin mar haddaad aniga isoo gaadhay buu yidhi aniguna arrintaada haddaan shaqo ka qabanaya bui hawsha waan qaban buu yidhi warqad buu qoray warqadda nin kale cumar uma dhiibin isagiibuu warqadda ugu dhiibay isagii كله أمير المؤمنين عمر أكتسان كسعوداء وكسو سلام عليه عاد كتير هذا حداد أمير كاجي أنا هاي ورقد يكون قرنت هاي وحق أن كقوله أبا موسى الأشعري وقدرين يسب ورقد نكا وكو كان يدقيسو قابل بسو أمري وصار نقد نكي عمر ولما نكي مسيدين فرس بوسي لعب بوسي ضرب بوسي كلكم مدة ولبن أوهيي أيود هذا ما يمكن سعوتك بصراء يوم مركا وقيم دابا موسى الأشعري أو خطبة دينيا مركز أمير كي المؤمنين عمر باي صادري عجيب مشتاقي وكسو سلامي ورقد أنا ويسو دي بآخر سبو كيدي ورقد دي بآخر ستي نكا فرس كاكا صار magaaladii aad la dhaxmartay marka hore la dhaxmar waxaad ku tidhaahdaa la fadhiista la cunteeya la saaxiiba waa walaalkiin uu toobad keenay toobaddu addoonka ilaahay bay ka dhaxaysaa wixii horeen hadal iga dhaco o dhanna waan ka noqday ee walaalkiin ma aragtaan cafiyo anna waan cafiye dheh abaa muusa alashcariy radia allaahu canhu sidii amiirkiisu uu ku amray buu yeelay halkii intuu ninka ugu yimid madaxa ka dhunkaday faraskiisii buu saaray magaaladii uu sidaa usoo dhex mariyey waa walaalkiin uu toobad keenay cumar bnu khadaab buu u tegey cumar buu fariintaa inooga soo qaaday walaalkiin la cunteeya oo la fadhiista oo la saaxiiba oo la sheekaysta oo la noolaada waa taa dadnimadu mas-uul ilaahay garanaya dhakhtar ilaahay garanaya injineer ilaahay garanaya professor ilaahay garanaya maalqabeen ilaahay garanaya faqiir ilaahay garanaya abaa hurayra radia allaahu canhu gaajo daraaddeed uu masjidka nebiga marka salaada laga dareero ayuu iridda nebigu uu ka baxay uu ku dhici jiray ninka reer miyiga ee magaalada madiine ku cusub ayaa intuu isku dultaaga odhan jiray war maad waalan tahay meesha ka kax markaabuu odhan jiray ma waali abaa hurayra wuxuu leeyahay waali maa waxaan la jiifee
gaajaan la jiifaa buu yidhi cumar baa ii yimiday markaasaan cumar ku yidhi aayadda qur-aanka halkaa aayadda qur-aanka halkay ku soo degtay cumarow markaasuu abaa hurayra wuxuu yidhi marka cumar aayadda qur-aanka aan weydiinayey garasho la-aanigama yahayn waxay iga ahayd cumar wejigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wejigaaga ku taalla intuu eego ha garto oo ha ku yidhaahdo abaa hurayra gaajaa ku hayse kaale ila soo xeraado ila soo cashee imuu fahmina aayaddiibuu iiga jawaabay buu yidhi yaalka ku soo degtay haddana abubakar baa yimid abubakar adna bal aayadda iiga jawaab halkay ku soo degtay abubakarna ima garan oo ima fahmina aayaddiibuu iiga jawaabay buu yidhi waa abaa hurayra baahi baa haysa 3 maalmood iyo 3 habeen afkiisa cunto ma gelin haddana abibakar iyo cumar inuu baahi u sheegtabu ayuu ka qarsanaya inagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan